السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال سو دوادا وولاشين صفية فارح محمد سدا إيجا برتين برنامج كاني oo aan dhiirigelinta ku saabsanaa oo ay idiin soo gali jiray maantay waqti aan hor soo gali jirma maanta waqti waxaan soo galay oo waqti dambe ah waqtigaasana waqti helay hadday maaragtay waxaan soo sheegay in aan maaragtay waqti aan helaynin oo laakiin hadda waqti yar oo aan soo helay aan rabo inaan wax yar kalimaad yar inii faa'iideeyo kalimaadkaas yartana saa ku aragtaan title-keyga aad dareemi kartid waxaa ku qoran xagee waqtigaaga ku lumisaa, waqtigaaga xagee baa geysaa, waqtigaaga see u isticmaashaa mise adiga waqtigaaga ku isticmaalo. waa labo questionka aan ku weydiinayo adiga right now hadda ku jiro qadka, adiga hadda i fiirsanayo ama maaragtay dhageysanayo. labadaas su'aal si tartiiba ma si aad maaragtay oo daacad ah isu weydii. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. haddaa i maqlaysaan walaal I hope inaa i maqlaysaan, keligii hadalka iska bilaabo waana ogahay inaa i maqlaysaan insha allah. laba su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo. timeka adiga ma isticmaalo mise timeka adigu ku isticmaalaa? sababtoo ah waxaa haysanaa 24 saacadood. 24 saacadood ay haysatid oo Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyey. thank you Nuur, waa mahadsan tahay. 24 saacadood ay haysatid timekaaga maxaa ku dhumisaa? reflection ma sameysaa inaad waqtigaa soo kacdid markaa salaada subax aad tukatid oo waqtiga kale salaada kale u dhaxeyso waqti badan u dhaxeyso ama shaqo ama waxa aad qaban lahayd ma isfiirisaa xagee waqtigeyga ku dhumiyaa, yaa se la hadlaa, yaa waqtigeyga qaato? su'aalahaas ma isweydiisay? 24 saacadood ma ku fakirtay inuu waqti ballaaran yahay? haddii xataa aad maaragtay nafsadaada aad siisid, raalli ahaada nalka yahay, haddii aad 2 saacadood maalintii aad siisid nafsadaada meesha gaari lahayd. wiigii 7 maalin waaye hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala nafta kugu simo. 7daas maalin aad haysatid 2 maalin oo nafsadaada aad gelisay, inteese maaragtay oo natiijo aad gaari lahayd? labadeeda su'aal waa taas. 2 saac aad gelisay 7 maalin natiijada gaari lahayd iyo waqtigaaga adoo honest nafsadaada u ah hadda now aan kula hadlayo xagee ku dhumisaa? mise midda koowaad hadda ani ka jawaabo, waqtigaaga dadka laba nooc oo kala baxaan. waa qof markuu subaxi soo kaco oo salaadiisa subax u tukado oo buug soo qaato uu maaragtay maalintiisa u balangareeyo waxa uu qaban lahaa, wixii uu gurigiisa ku saabsan, wixii caafimaadkiisa ku saabsan, wixii mas'uulka dadku ka yahay ku saabsan ilmihiisa, ama waxa laga yaabaa waalid inuu kugu xariiro. waxaasoo dhan aad ka fikirtid oo aad dhahdid maanta wixii waqtigeyga saana u kala isticmaali lahaa, waqtigeyga saana u kala baxsaday. mid waa qofkaas waqtiga u soo harana uu gaar uga dhigto uu nafsadiisa ku kobciyo. sababtoo ah nafsadan waxa lagu siiyey dheeldheel maahan. in Allah subxaanahu wa ta'ala ku caabudid, in Allah subxaanahu wa ta'ala waxa ku caabudi lahaydna aad baratid knowledge-keedii. adoona knowledge aan baranin maaragtay wax caabitaankaaga muxuu noqonayaa? sababtoo ah wixii Allah ku caabudi lahayd inaad baratid waaye. sida salaada oo kale waa inaad baratid salaada sida loo tukado. maaragtay waxay leeyihiin step ay leeyihiin salaada. sida maaragtay xitaa zakada step ay leedahay. soonka wax walba aad baranaysid oo cibaadada Allah subxaanahu wa ta'ala kamid ah stage ay leeyihiin. stagekii waa inaad nafsadaada waqti gelisid aad ku baratid. salaadoo kale markaad tukanaysid quraanku Allah kaa rabo inaad ku tukatid, waa inaad quraanka taqaanid aad ku tukanaysid. marka see ku baran kartaa quraankan marka aad ku tukanaysid? waa inaad baratid oo nafsadaada waqti aad siisid. nafsadaada haddaad waqti siinin oo waqtiga adiga aad isticmaalin, waxa ogaataa waqtiga asaa ku jiidanayo. maalin kasta soo ku jiidanayo ee waxa kugu sii daraysaa bil ku sii jiita, haddana waxa ku sii jiidatay 6 bilood, haddana waxa ku sii jiidatay sanad, 2 sano, 5 sano. cimriga ibn aadanka uu leeyahay meeqa sano cimrigaaga leedahay? marka noloshaada marka waxaa rabtaa miyaa inaad shallaay ku jirtid oo markasta aad dhahdid marmarsiiyo ma haysto waqtigeyga, maaragtay waqti fiican aniga ma haysto. ama hadhowdi markuu waqtiga ku dhaafo aad meel soo fariisatid oo cimrigaaga uu sii koro aad tiraahdid shallaayan ku noolaana. waxa ku noolaanaya yacni maantay haddii aan qabsan lahaa markaan waqtigaas jiray, haddii aan wax samaysan lahaa marka da'daas aan jiray, haddaan wax samaysan lahaa. marka noloshaada maxaa rabtaa inaad ku jirtid shallaay? qodobka kale waxaa rabaa si direct inaan ula hadlo dadka waqtigooda ku dhamiyo. maxaa la yiraahdaa politician,
dadka waqtigooda ku dhameeyo inay xanta raadiyaan dadka waqtigooda ku dhameeyo war 1 minute haday ku dhaafto 1kaas minute waa 1 hour maalinta kale wuxuu ku noqonaysaa 3 hours ku dhamisid journal inaad soo qaadatid journalkaas wixii wasaqdi ku jirtay wax adiga isleedahay waqti iskaga qaad ama waxa isleedahay raadi waxa adiga aadan sixi karin sababtoo adduunka ma sixi kartid wixii adduunku soo u shaqeynayo systemku adduunku u shaqeynayo wax adiga aad mas'uul ka tahay ma ahan wax adiga gacanta ku haysidna ma ahan xitaa hadaa aad akhrisid waxa ogaataa akhriskaas akhrinaysid in maskaxdaada aad dhaawicisid in maskaxdaada slow ka dhigaysid maskaxda maaragtay oo xoogaa hoos waxaan ka wadaa oo shaqadii ay shaqeyn lahayd active ee noqon lahayd xoogaa slow noqoto sababtoo maskaxdii waxa ka buuxinaysa information aan loo baahnayn information ka loo baahan yahay waa knowledge information ka loo baahan yahay waa wax positive oo maskaxdaada beerta markii aad biyo ku waraabinaysid kuma waraabinaysid biyo la'aan oo ma dhehaysid beertan inay ii baxdaa rabaa maanta beertan waxaan rabaa inay anfacaado laakiin biyo ma haysti biyo kuma shubin ceel agteeda kama qodin okay maxaa sameynaysa ama booyad ama dadka biyaha meel ka soo shubtaan dadka baadiyaha jooga xitaa aaniyad gashitidna beerta inay ku baxdo kuma baxaysa beertaas maskaxdaada waa beer gudaheeda waxay ay kubacdaa markii wax wanaagsan ay hesho waxay dib u dhacdaa slow down ee noqotaa ama breakdown uu ku dhaco markaan waxaan wasaq ee soo gasho waxyaalaha wasaqada waxaa kamid negative-kana 100% wuxuu ka imaadaa wararku ka imaadaa newsku ka imaadaa journalka and anything TV-gaas ka imaadaa waxyaalahaas haddana wuxuu ka sii imaadaa qof saaxiib xun hadaa leedahay saaxiibkaas xunna uu ka sheekeynaa 24/7 qabiil hebel saan u dhahay qabyaalad hebel saanay tiri nation hebel saanay dhaheen country hebel saanay u kala baxeen sheekh hebel saas u dhahay heblaay saas tiri hebel saas u dhahay haddii noloshaada waqtigaaga gelisid waxaa ogaataa ina hal qof tahay adduunkan Allah inuu adiga kali ku keenay adiga kali in qabriga lagu dhigayo adiga kali in su'aash inay ku taalo qofka lagu soo agfariisiinayo ma lagu dhahay qofkan su'aash asahaaf ka qaadanayo qofkan aku marmarsiyoona sababtoo family marka leedahay adduunka wax kugu tari kara aakhir wax kugu tari karaan waqtigaadana meesha ku dhumayso waa lagu weydiinaa cimrigaada meesha ku qasaarayso waa lagu weydiinaa meesha waqtigaada aad geysay oo aad focuskaaga ku leexisay Allah subhanahu wa ta'ala wuu ku ogaa any action aad qaadayso kula socdaa hadhoona bari marmarsiyadaas laga yeelayo oo aad ku dhahdid waqtigeyga waxaan ku dhimay meel inaad tago shiishad ama wax lagu cabo ama meel fasuq hadii aad cabin xataa fasuqaas wuu soo gaaraya ama ay isleedahay waxaan ku marmarsiyoona asxaabteeda raaca aniga ma cabin ma sameeyay oo aad la fariisatid maxaa ogaataa wasaqdaas in adigana la qaadanaysid in xitaa waxay ka sii wasaq badan tahay saaxiib hadaa haysatid oo kelmadda ee markasta ku hadlaan u badan kelmad xun waxaa ogaataa adigana kelmadaas xun ina sawirkaas maskaxdaada ay galayso oo hadhowdi adigoona is ogeyn kelmadaas wax la mid raadinayo oo research sameynayo internetka galayo oo dhahayo waxa rabaa ina ogaado sababtoo maskaxdeena waa sensitive isma controlno waxa aragnaana controlo sawir maskaxdeena waa taa inay sheegay sawir wax ku aragtaa maanta hadaa wax rab ina barto visual ina ku fiiriyo waay sawirkaas maskaxdaad sawiranayso xasuustan lagu sheegay maxay tahay sheeg afka waxa ka akhrisay waa xasuusatay laakiin picture maskaxda gelinaysa maskaxda sawir isu bedelaysa waxa laga yaabaa hadii meel quraan ku akhrin jirtay oo afadin jirtay quraanka ku xifdiso kale ama aayad quraan ama wax ku baratay ama xadiis in maskaxdaada saa u joogtid marka aayadaas akhrinaysid aad soo xasuusatid meeshii aad fadhiday meeshii dadka kula baratay dadka kula fadhiyay wixii oo dhan yaa sawiray maskaxdaada sawirtay laakiin ma ogtaa maskaxdaada inay sawiranayso meelaha xun ama meelaha maaragta xun waxaan ka wadaa aan qof xunaata kuma lihi laakiin waxaan ka wadaa meelaha oo waqtiga ka qaadayo oo negative ka maskaxdaada ku reebayo in maskaxdaada ay sawiranayso oo adiga bari aad raadinaysid laakiin see uga badbaadi kartaa waqtigaaga adi control waqtiga yuusa adi ku controlling barina shalaatiga awoodid it will never work adeysid waqtigeyga intuu ka baxay kanuu sameeyay kan wax ma qaban karo ama maanta dadku waxa u badan in ku marmarsiyoon hadaa tiraahdid okay qofkan kale waxba kuma dhaamo qofkan waxbuu qabsaday wuu dadaalay laakiin qalad kale yani dadaal kale muusa sameynin waqtigiisuu controlay subax markuu soo kaco waqti sameystay timetable uu sameystay oo nafsidiisa uu sameystay timetable familkiisa uu sameystay timetable waqti wax ku baran lahaa
sababtoo nafsadan xaqi kugu leedahay laftigeeda inaad time siisid in aad siisid time dadka mas-uulka ka tahay oo guriga kugula nool ama ay ahaadaan caruurta dhashay ama waalidkaaga ahaadaan ama ay ahaadaan dadka adiga mas-uul ka tahay in adiga mas-uuliyadeeda aad kasoo baxdid aad meel ku qoratid iyo tii wax aad ku baran lahayd meel aad ku gaari lahayd haddii noloshaada aad saddexdaas ka dhigtid waxaa ogaa qof kasta oo taas sameeya today inuu liibaanayo inuu gaarayo wuxuu rabay laakiin haddaad reality intaad ku nooshahay news iyo qabiil hebel muxuu dhahay hebel muxuu dhahay aa ku jirtid niyadaada ha gelinin internetka motivation ha gelin intaad book soo qaadato gurigaada lacag iyo kaa khasaarin oo dukaan aad tagtid book soo gadatid waqtigaas ka qaadin ilmahaaga ku dhihin waxaa rabaa inaad wax baratiin inaad dad fiican noqotiin aan rabo ha dhihin waxaad u dhihinin adiga isdhisin nafsadaada adiga isdhis hadhowna berri waxaa leedahay because adigay kaa badanaysaa qabyaaladii waxaa kaa badanaya negativekii berri waxaa kusoo baxaysaa adiga inaad raasatid hadhowna waa isdagaalaysiin maxaa isu dagaalaysiin because waxaa meesha dhex dhigateena iskaga hor imaanaysaan hadhowna waxaa leedahay ani waxaa qabaa dad inacab aniga waxaan leeyahay dad aniga ay arki karin yaa abuurtay oo waxaasoo dhan samaystayna waa adiga wax walbana waxay ku bilowdaan slow wax yaray ku bilowdaan wax yarkaana waxaa waay inaad facebook soo gashid oo pagekaaga qof kuu soo dhigo qof wax caynayo ama qof waxeynayo ama qof oo ku dhahay informationkaasaa hayaa adigana informationkaa ku oraday informationkaas adiga muxuu kuu taraa ii sheeg noloshaada ma wax ku isweydii horta first question aa isweydiisid qof hadduu clip kula wadaago ama dowlad ha ka socoto ama wax kasta ha ka socdo oo ama qof lagu xumeynayo ama qof wax lagu dhahayo horta question ani maxaa iigu jira dheh ani wax maan ka helaa anfacad mow aakhiro maa wax uga helaa no adduun maa wax uga helaa oo wax maa isoo galaayo no nafsadeeda maa wax ku baranayso no haddee afartaas no kuusoo tuurto inaad noloshaada aad dib u fiirisid aad tirahdid okay nolosheeda waxbaa ka qaldan marka haddii aan kan ku raaco laakiin haddii aad dhanka kale u leexatid oo sida aan kuu sheegay aad samaysid oo noloshaada adiga in charge u noqotid sababtoo haddii kale waxaa ogaataa tv-gaas ninka keenay inuu adiga remote-ka kuu haayo inuuna ogahay inta milyan oo dad fiirsato waxyaalaha politicianka ku saabsan newspaperka ay soo saaraan they know inaad daawatid inta view oo soo gashay ogyihiin haddana waxay kuu ogyihiin inaad muslim tahay labo in waqtiga ay kaa qaadeen sababtoo qofka muslimka in waqtigiisa ogyahay waaye waqtigaaga meeshaa ku bixisay waqtigaaga meeshaa gelisay so waxaa ogaataa adiga dhan in remote control lagu noqdo berina generationkan oo ilmaha cusub oo hadda dhalanayo inaad adi celin karin sababtoo adiga is celin weysay adiga waxa iska celin weysay waxyaalaha xun inaad fiirsatid adiga waxa iska celin weysay in newska maanta dhan 24/7 aad fiirsatid waxa iska celin weysay in xanta agtaada lagu sameynaa aadan iska joojinin sababtoo ah dadka maantay especially dadka Yurub ku nool meelaha jirta isugu imaadaan meel markaa isugu imaatiin ma fiirisay qofkan maxaa ka kordhisan karaa ani qofkan ani muxuu ii taraa sababtoo ah you know time-ka markaan ku dhahay 1 minute qof uu ii sheekeynaa 1kaas minute haddaysu ku jirin wax positive ama wax wanaag igu jirin halkaas iga joogay 1kaas minute uu iga khasaaraa because nafsadeeda inaad nafsadaada inaad ka dhigtid waa high standard meesha ka dhigi lahayd qof kale ah ka filan lahayd inuu expectation ka qabileed qofkaas high standard ah siin lahayd taada high standard see iskala weynow in 1 minute ee kaaga dhunto wax qaldan taas ka xanaaq waxaad tiraahdaa nafsadeeda ka weyn waqtiga qofkan kuma dhuminaya sababtoo qofkan koobshaa ila cab xataa hadduu ku dhaho waa inaa maskaxdaada foojignow miisaan qofkan maxaa ka kororsan karaa muxuu ii taraa qofkan inaa ogaatid waa adigana sidoo kale nafsadaada waxa ogaataa dadka kale isaas ku cabirayaan dadka wanaagsan oo adigana saas qashinka lagu daraa lagu dhahay qofkan waxba ma ii taraayo sababtoo ani dadka kama xishoodo mana ka baqo daacadda u sheegaas waxaan u dhahay adinka idin la wadaaga waxay tahay markayga hore ma sameyn jirin waxa ahaa waa ka xishoon jiray anigu waxaan xataa la wadin laakiin qalada ku lahaa waa ka xishoon jiray inaad dhahay heblo ama hebel stop warka ay ugu wadid waxaas dhigi jiray qofkan ha ku hadalka ku celinin let them talk لأدم هاسك ساران وحا ماركتي وعلوشو ذو كجرتو لكن وحا أغاذي إني أنيغا أفكت إيغارسينيسي أنيغا سلو دان نقوناي وحا برشاد إيغو أتكاتي نولوشي أدونك سامو أركاي إيقال داناتي سوابتا نولوشي أدونك وحكون نقونيسا أدون فولحن وحكون نقونيسا وحول بإني أدقيهين
nothing adag ma jirto adiga aday ka dhigtay maskaxdana waxa ku dhaay marka soo bilaabo cajalada waa hadalkayga hore ku jirtay slow down noqotaa hoos u degtaa wixii hoos uga degtaa negative ka markuu bato maskaxdeena machine waaye machine-kaas energy ku shaqeeya machine-kan wuxuu ku shaqeeyaa focus wuxuu ku shaqeeyaa inaad go'aan leedahay wuxuu ku shaqeeyaa in go'aankaagu adag yahay wuxuu ku shaqeeyaa in maskaxdaada ma aragtay wax walba oo soo galay aad iska ilaalinaysid sababtoo waa guri weyn oo palace guriyaha waa weyn ay leeyihiin dadka queen ama king isku sheego palace aad u weyn waaye ama football meelaha footballka lagu ciyaaro wixii aad geliso soo bixitaankiisa way adag tahay inay ku wareegsato waaye adigu kugu soo noqoto maxaa loo dhahay wixii yaraantaada markaa yartahay waxa kugu soo noqdo loopkaas kugu soo laabanayo effect weyn ku gaarsiinayaan sababtoo isma lihid wixii yaraanteeda effect i gaarsiin karo maskaxdaada ma soo galayso laakiin maxay ku gaarsiisay maskaxda ilaahay ku siiyay ilaa haddeertan scientists-ka way soo saari laayihiin how big it is wax walbo aad geliso way ku wasaqeynaysaa way ku heynaysaa marka adiga iyo job maxay tahay shaqadaada ma taqaanaa insecurity guard aad noqotid in aad iska ilaalisid wax maskaxdaada soo galayo in aad u foojignaatid dadka aad la fadhidid wixii qofkan maxaa iigu jira dhaani horta kow muxuu ii sameynaa qofkan muxuu ii anfacaa nolosheeda diiniyana kuma qaldanid sababtoo waxaa lagu dhahay good companion yeelo dad asxaab wanaagsan oo adiga wax ku soo gelinayo adigana aad wax gelin kartid laakiin adiga haddaad daciif tahay oo asxaab xun aad la tirsan tahay oo noloshaadan aad ku haysid meel inaa gaaraa rabaa aniga waxba i haysto waxbarashada igu adag maaragtay maskaxdeedu way adag tahay business aan furtay waa kora u qaadi la'ahay isfiiri adiga isfiiri dib isugu noqo timekeyga subax ka bilow buugii qalin ku qoro waqtigeyga xaggee ku dhumiyey waqtigeyga xaggee geeyey yaase la sheekaysta how many saaxiiba leeyahay how many times saaxiibku waxaa kasii daran oo husband ama wife kuu noqdo waa internetka aad kasoo gashid dhanka politics ama ha ahaado dhanka xanta ama dhanka gossip ama dhanka dadka hobolada aad dhehaysid hebel qaladkaasu leedahay hebel xaaska lagu guursaday hebel intuu ka baxay hebel adiga isno iyo job adduunka ilaahay wuxuu kuu keen kuma keenin in adiga soo tiri koobtid dadka adduunka ku nool qaladaadka ka dhaco let alone dadka wanaagsan xataa qaladaad dadka wanaagsan xataa inaad soo tiri koobtid at least haddaad dadka wanaagsan soo tiri koobista aad leedahay hebel wuu wanaagsan yahay waxaa helaysaa positive energy kusoo galaya oo positive ah maskaxdaada haddii rabo qofka aadan la sheekaysan laakiin positivekiisa kusoo galayo because waxaa ogaanaysaa qofkaas horumarku gaaray qaabku ku gaaray go-aankiisoo adkaa waxyaalihii uu qabsaday waxyaalihii meel uu ku gaaraa kuu sawir maayo laakiin qofkan kale maxaa ka heshay waa qof ibni aadan adigoo kale waa qof qaldami karo marka hadalkayga intaasoo kusoo gabagabeynaya iska ilaali qofkaa la socotid iyo waqtigaagana ilaasho negative-kana iska ilaali si kugu soo geli lahaa maskaxdaadana ogow wixii soo gala inay kuu haynayso aadaan u mahadsantihiin the only thing aydin kaga tagaa 24 saacadood adigaa choice kale waqtiga meeshaa gelin lahayd iyo waqtigaada meeshaa ku xisaabin lahayd haddaada adiga qalin in buug u qaadan waqtigaaga ah xisaabsanna asagaa ku xisaabsamayo sababtoo ah fraction xisaabta jajabka markii la sameynayo way kala baxdaa half two wixii u kala baxdaa sooma waqtigaada 3 halfka kala dhigo half nolosha ilmaha iyo gurigaaga oo allahna ku caabudid subxaanahu wa tacaala half waxa adiga ku anfici lahayd nafsadaada halfka kale waxaa baratid dadka waxaa walaalaha ku gaarsiinayd ku anfici lahayd nafsadaada waqtiga intaas u kala waxayso أن الله سبحانه وتعالى أنه ودن هنودن حريستو الله سبحانه وتعالى ودد توسن هنو هنونيو أنت دبعتسن أنت حنوسن الله سبحانه وتعالى هعاويو الله وحاوغ بريايا أمد إسلام كميلي جوكتن دن إنو إلهي ون كديغو إلهي إنو أنت أمد صومالي ملكست إي جوغان إيغانا ون إلهي إنو كديغو وكسو هدي إن من نخضان إي من نمدو كتوسان وانا إيوان السلامة دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته